kaga mahad celinayaa aqbalaanta naga aqbashay interviewgan ama waraysigan marwo waxaad ka warantaa tartankii aad gashay iyo kaalintii aad kaalinta afaraad ayaad ka gashay marka sideed u aragtaa بسم الله الرحمن الرحيم والسلام يا حسن عدي أديك إيو مدى الصومالية ميل كستاد جوكتان كالنتا أنكا قالي طبعا ما هين كالنا سواي أما أن أفريي وكان قدر أهيد ودبرشاب إيو لغوي اللي بسميها كالنتا كويب waa maxay marka sababtu in aad kaalintaad gasho 10th annual Hunger Games are soon approaching. Enjoy the show. kaalintaad gasho maxay sababtu ku timid waxaad la maldahay والله sababtu de waa sababtaad ogtihiin iyadoo hawluhu meel fiican marayaan dadaalku sareeyo ma sha Allah wax walba isu toosan yihiin waa warqadaas oo gudoomiyahaygu soo qoray timi warqadaasaan sababsaday warqadaasa waxay noqotay warqad lala yaabo oo ma garanaysaa warqad aad loola yaabo musharaxadan oo wadankeedii kala noqdeen bilaa sabab iyadii ay ogeyn intaasay ahayd deetana de waad garan kartaa xasanow adiguba qofaan u heelanay oo wadan kale u dhashay la yiraahdo gudoomiyihiiba ama baarlamaankii gudoomiyihii ayaa kala noqday dee aad cod maad siiseen qof walba intaa wuu fahmi karaa marka intaasaa dhacday wala yaad marka ku matalaysay tartanka haddii gudoomiyihii baarlamaanka dowladii Soomaaliyeed ay ku yiraahdeen maaragtay tartanka ka laabo ay warqad soo qoreen yaad matalaysay walaalo dowladda Soomaaliyeed waxba ma soo qorin horta taa aan ku saxo waxa wax soo qoray waa gudoomiyuhu wuxuuna waa warqad waana aragteen warqadaas marka ayaa laba la isku khalday warqadaynu ka hadalno dowladda aan wax soo qorin haddaa soo gelisay waxa waaye wax fiican maaha waxa warqada soo qoray oo keenay waxa weeye gudoomiyaha marka dabcan baarlamaanka ayaa matalayay waxaana matalayay Soomaaliya xafiiska ra'iisul wasaaraha oo aan wareysanay waxa uu Soomaaliya matalaysa maahinayma nafteeda Soomaaliya uu kugu wargeliyay inaad tartan ka joogto madaxweynuhuna fariin ku soo diray marka adiguna aad ka laga adeegtay intaad halkaas aadin taamiye jirta oo ra'iisul wasaaruhu makaalaha loo ku yiri ka joog aniga ra'iisul wasaaraha ila hadlay fariin madaxweynaha soo gaarin wax soo gaaray ma jirto طبعا وين الاستدفاع وورقتي لو ميلدايو ورقتي عيبتا داليساي قلدرada soo hoysay waa in loo meeldayo baarkay ninka awreysanaysa xafiiska wasaaraha nin shaqaale ah oo xafiis ka shaqeey wuxuu ku hadlay goob joogna muu ahay marxaati ma keen in warqad la soo qoray ma keen marka in nin bariiskiisa ilaashanayo ku ag fadhiyay inaad aniga weydiiso su'aashiisa maaha waayo si marxaati ma marwa adigoo maasan adigoo marka waxaad leedahay ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha midna qofna iguma wargelin ama fariin ha ahaato ama kulan gaar ha ahaato cid ila hadashay ma jirto waayahay markii aad tartamaysay oo aad rabtay inaad tartanto gudoomiyaha baarlamaanku ma jirtaa warqad iyo labada gudoon warqad ay kuu qoreen ay ku leeyihiin tartankaasi Soomaaliya waa ku matali kartaa ma haysataa warqadaasi waan haystaa warqad waxaan haystaa qaraar baarlamaan waxa weeyaan labada aqal baa saxeexay labada gudoomiyaha saxeexay wax laga fiirsaday yahay wax laga discussion galay yahay wax si wada jira si wadara looga wada fiirsaday yahay ma fahantay wax warqadana waan haystaa maxaa dhaqaale la igu ururiyay baarlamaan haddii aniga aanan maxay hayto laga qaaleehay maxaa la igu ururiyay maxaa warqadaa loo sameeyey wax walba waan haystay laakiin dee anigu mara aanan ogeyn baa socday marwo madaxweynaha Soomaaliya Tanzania uu tagay ra'iisul wasaaraha Tanzania uu tagay waxayna sheegeen inay kursigan ku bedesheen oo ay ku bedelanayeen kursiga qaramada midoobay golaha iyo East African Community inay horay ka hortaa ay heshiiskaasi u soo galeen baa la sheegay arrintaasi miyaan lagu sheegin
walaalo aniga waxaan ka tirsanahay ha isku khaldina anigu waxaan ku daalay saa uga jawaabay miyaa lagu sheegay war anigu waxaan ka tirsanahay golaha shacabka golaha xukuumadda heshiisyada qarsoon oo maaragtay sida gooni ah loo galay oo anaga noloma sheegin maxaa aniga marka uu kubaala miyi anigu calooshooda kuma jiro hadiise loo sheegay maxay u soo bixi lahayd maba lagu ilaheen kuma jiro aniga guddoonkaas ayaa ii guddoon ah ayagu hadday ogaayeen iyo haddaanay ogeyn aniga ay weydii anigu ma ogen walaal wax heshiisa iyo wax la kala galay midda la ima sheegin mana ogeyn waayahay markaas sideed u aragtaa mar haddii warqadii uu guddoomiyuhu kasoo qoray ay ku saamaysay waa maxay tallaabada xigta oo rabtay inaad qaado maxay haddii aad sheegtay in lagu dhabar jebiyey okay waxaan kula socodsiinayaa waxay weydiisay warqadaas kolleyba waxaan aaminsanahay waqtigan xaadirka ah qof dambe oo soomaali ah oo rajo ka qabi kara inuu u tartamo kursi caalamiya way adag tahay kalsoonina kuma qabayo qof kastaa wuu ka baqayaa marka waxaa liweysha kula dibku ha ku quusta aniga meeshaa lay dhigay qof dambe inuu isku ceebaynaayo oo nool soomaali inuu u tartamo sababtoo dhabarjabkaasoo kala sugaysa intaasaan taana uga jawaabo waayahay marka fikirkan goorma kugu dhashay marka inaad kursigan u tartanto goorma kugu dhashay wuxuu igu dhashay muddo badan buu igu dhex noolaa fikirkaas oo aan maxaan ku rahdaa rabay inaan sameeyo markii arrinkan bishii febraayo ayay ahayd processka markaan ka fekeray bilaabay marka anigu muhiimadeeda ma ahayn walaal waxaan anigu nafteeda u raadinayay muhiimaddu waxay ahayd maqaam sare oo aad soomaali wax uga tari kartid oo maxay ahayd muunadeeni iyo sharafteeni iyo milgaheeni aan ugu soo celin karo intaasay ahayd wax aniga wallaahi ilaahay baan ku dhaartay wax laga faa'iidayaan ogey lacagta laga qaadan doonaan ogey waxa uu yahay yani wuxuu yahay waa ogaa laakiin shakhsiyan marwa ahaan waxa aan ka faa'iidayay ma raadin laakiin waxaan raadiyey maxaan soomaali uga magaca soomaali khayr allah ku sii marwo waa dalaashay la fahmi waayey oo wax kale ay dhaceen taas waxa waaye qadar alle iyo ku qabsataa lagu aqaana kursigan muddada aad adigu soo bandhigtay bilo yar bay ahaayeen sida la sheegay waxaana loo baahan yahay meeshaasoo kale marka loo tartamayo in muxuu ahaa hal sano iyo kambaynka la wado oo wax badan laga shaqeeyo ma kugu filneedaad u malaynaysaa muddada gaaban ee aad ololaha bilowday walaal dhegayso aniga warkii oo ninkii kula fadhiyay warkiisii hayla ishadamaani ninkii kula fadhiya wuxuu ku yiri kursigaan oo kale sanadaa lasii tartama wax ka jiraa male waxa waaye danaha qofka haddii laga dhex arko haddii qofka dan laga dhex arko asbuuc gudihiisa lagu ogolaana marka wax sanad la dhaho iyo wax 10 bilood la dhahaa ma jirto waxaan waxa waaye sidaad adiga dadka intaad fadhiisato u qancin kartid ani ilaahay wuxuu isiiyey awood haddaan dowlad hor fadhiisto iyo haddaan shaksi hor fadhiistaba aan ku qancin karo oo ay ku fahmi karaan fikirkayga marka aniga qanciskayga ayaa wanaagsanaa fahamka aan kursigaan ka haystana wuu sarreeyey marka wax ka dhexeeya aniga miyaa lay ogaa kursigaan in badan baa usoo aan meelo badan u teg oo aan hawshiisa waday markaa sidaa daraaddeed walaalo waxa weeye muddo kuma xirneen waxay ku xidhan tahay sida adiga shaksiya lagaaga dhex arko inaad kursigaas geydo ama fikirkooda aad maaragtay intaasay ku xidhnayd laakiin muddo iyo kambeyn kumay xirnayn haddii marka aad maqli lahayd ama lagu soo bandhigi lahaa leema soo bandhiginaad tiriye in dowladdu ay doonayso kursigan inay ku bedelato labadaas jago ama meel kale oo ay heshiiskaas inay soo gasho ogaan lahayd kursiga muu tartami lahayd mise waa ka hari lahayd yaa ilaahay walaal aniga mihi nooca la dhaho kursi qaado iyo waxan qaado iyo aniga noocaas mihi marka walaal intaasaan kusoo gabagabeynayaa adigu haddii aan ogaan lahaa dan weyn oo soomaali uga dhumayso anigu kursi wuxuu ii taraayo male awalba dantaan u socod waxay ahayd inaan soomaali wanaajiyo oo aan wax ugu raadiyo ugu qareemo wanaag ugu sareeyo meelaha laga goynayo arrimaha soomaaliya lagu jaangoynayo inaan waddankayga uga faa'iideeyo ayay ahayd marka taas haddii layla fahmi waayo intaasay ahayd su-aasheeda ma aaga fahmin marwo su-aasheeda ma fahmin tana ugu dambaysa
ما تنا ugu dambaysa hadii lagu soo bandhigi lahaa oo lagu dhigi lahaa dawladda Soomaaliya kursigan waxay uga tanasushay arrimo kale ayay uga tanasushay iyo kuraasi kale ma aqbal lahayn ku ma aqbal lahayn يا إلهي waaba u sheegtay hadii la dhigi lahaa wadankeena waxaas ugu hormarina waxaa jiro wax ka weyn oo kale oo muhiim ah oo inaga fakanaya ee kan ka tag ana qof madax adag mihi dawladda iyo dadka iyo ehelka iyo dadku hadii la hadlaayeen ama intii ila joogtay Angola la dhigi lahaa wala anigu ma diideen kamana weynaadeen waayo waxaan raadinay waa dan shakhsi ma aha waa dan ummadda Soomaaliyeed marka waxaan dhihi lahaa hadii ay jirto tan uga weyntahay de waa ka tanaasulaya wax dhib aan u arkay ma jiro walaal ma santahay Marwo Bashiir oo u tartantay